warganac satadaan la hadlaya oo isbariyeelay markasta idinka ayaa darafka ah maxaa yeelay inaad noolaatid kaana ina shabaab heshiis ku tihiinba in ayagana dadka ni hayaan inay cabsiyaan idinkana lacag yeelataan wal maanta Yurub ayaa carruurtii ay gaala qaadanaysa oo walaayladii meel ay qorrax u laabteen la yihiin maanta cid ay dhaafeen ma aragtay shabaab cid qabiil ay wax ka dilin ma aragteen marka ninka ku sabra arinta oo raali ka naqdo oo dawladnimada diida على الأقل inay warqanaxsato waxaan leeyahay wixii dawlad haysa gacanta ku haysaan macaan duruufa wadanka jirta waa ka soo bixisana ka dawladdu ku wareejiya oo telefoonka dawladdu ku wareejiya oo biyaha ku wareejiya waladankan UK aan joogna anaga dawladdu waxay leedahay malaha hadan dawladda maamusha shirkada ayaa maamulo marka inaad dadka ku galada sheegaysan oo yamanuuna cala naas atiraahan anaga wax ni hayno iyo shaqalacsatada service bixiso servicekiina shacabka askale shacabka ayaad ku baraarteen ay wax ku yeelateen shacabkana dawladdu lagu sheegay waa shacab marxalada marayna oo isbedbedelan ku jirna waxba waan gaari doonaa in shacabka codkooda ay wax ku doortaan laakiin waxaan leenahay ya maanta ishi waxay ku gudantahay ganacsatay ku gudantahay xoolihi shacabka oo dawladdu maamul leedahay ayaga maamula maanta ayaga laantooda ma socon karaan qolada marka waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada wallahi rizqa tacbaysan qiyaamaha waan weydiinaya nabiga kaleey salaam wuxuu la tazalu qadam abta hatta yusla an arba'in afar su'aal waxa kamid maalka gal weydin min ayna lak man maalka aad daaraha ka dhisanaysid oo haba islaan miskiin lug ka go'an oo qarax lagu sameeyay maal ka tacbaysid hadhow indhaysid 100 kuna bixiyo 50 kuna bixiyo hada allah wallahi anaga xaq waa ku bayaaninay hadda ilaahay u tuubo ila allah maanta waxaan leenahay shabaabka ma ahna cid kasto saacidiis waxaan leenahay ilaahay u toobakeen من عانى على قتل مسلم النبي عليه الصلاه والسلام نكا شطر كلمه قاده halkan waxa lagu soo qoray aayus bi rahmatillah maanta ciidankeena xoog dalka waa waxas oo naga qabtay dawladdaada goormay ciis yeelan karta ay iska dhicin karta haday shacabkeeda garab taagnin adduunku waxa la isku gumeystaa dadka markii shacabkaaga laga xigsado shabaab shacabku baanay u sheegeen inta sano ay qaldayeen 15 sano 20 sano ay qaldayeen laakiin ilaahay xaq uu maanta soo daayiri marka xaqas daari waxa way waa inaan isxaan raxma aan loo helin way maanta shabaab ilaahay subhanahu wa ta'ala dulmigi ku jireen xiriga u dheereen in allah la yimhulu dhaalimka laakiin maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantooda ka baxay daliil waxa uu cad ilaahay inuu qofkii cabsida dadka ku jirtay ee ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka qaaday saas daraadeed waxa la doonayaa culimada markaan oo kale qaasatan ku wadanka jooga jumcayaasha iyo inaad dadkan waxay loo bayaanay dadka hadaan la baayo culimadu way dambaabayaan عد كستو كو كالميسنا إذا لم يتهي ولا تعاون على الإثم وي